ka warramaya howlgallo ay magaalada Hargeysa ka fuliyeen waqtiyada ka mid ah. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Marka horta laga yimaado taariikhdii fogeyd waxaan ka mid ahaa ardaydii 28 February mudaharaadka macallimiinta ka qayb qaatay ee markii dambe la xidhay oo waxaana la xidhay April 14keedii 1982 maalintaas mudaharaadkii ugu weynaa oo dhacay jeelka Madheerana la geeyay laba qaybood baan ahayn hablo iyo inta dhalinyarada baan ahayn wiilal bes ku jira gabdhiyo walba isugu jira dadana gabdhaha habeenkii dib baa loo celiyay saq dhaxana la geeyay meesha hablii markii dambe waxa jeel dumar jiray Berbera markaa la geeyay waxa la raacay laba inan oo midooha Ahmed Xasan Daahir baa loo jiro waxay walaalahaayeen ninka dhakhtarka Daahir Xasan Daahir sax dabeedna halka wax badan ka soo faa'iidno odayaashii ku jiray jeelka sida Allah u naxariistay Umar Adraawi oo kale oo in badan soo ahaa xisbiyadii iyo ku soo jiray ururada iyo waxyaabaha noocaas ah ayaa halka talooyin badan loo sameeyay iyo arrimo badan oo war imika inta halkan joogtaan ururo yar sameeysta sax oo waxna wadanka ka shaqeeyaan waxna ay jabhada la xiriiraan inta uu ka faa'iidnay waanu sameeysanay jeelkan ka soo baxnay jeelka markaan ka soo baxnay ayaa deetan waxaan ku tashanay in la isqaybiyo oo bal horta xaqi jabhadana loo talaabo dhagixaynu qori ku bedelano sax deetan horta sidaasan ku talaabo waxaan talaabay 24 March 1983 ayaan talaabay waxaan ahay 12 arday oo laba hableeyeen Faisal Sanyare Faisal Maxamed Ali iyo Farduus Saleeman Cilmi waxay walaalahayn jawaar loo jiro BBC da ka jirtay labadooda dibadii ku maqayeen tabarkii markii aan soo dhamaysanay ee muddo dagaalkii xuduudka ka socday maalinba inaad garanaysiyo labaad garanaysaa dhimashadooda ayaa waxa yara dhacday war aynu bal gudihii gallo hadeen meel ku dhimanayno aan gudaha ku dhimano dabeetana fikradaas haddana na gashay waxaan markaa bilownay inta magaalooyinka la soo galo in dhalinyarada lagu tababaro oo tababar la siiyo oo inankii isma difaaci karo qorigeena ridi karo tiibaanu markaa halkan ka bilownay waxa markaa ka hoggaan Maxamed Cabdilaahi Maxamed Arninka la yiraahdo ayaa ka hoggaan iyo Cabdirasaaq Axmed Cumar Juxo Allah naxariis jannaha ka waraabiye oo qaali isna aad qaali ahaa halkana markaa ka bilaawno hawlgaladii horeysay marka in badan baa odayaashu yiraahdeen waxba noo soo joognay waxaan soo joogay iyadoo sanamaani jirin ba oo hal gaari leh laba gaari lahaayeen mid uu watay Aadan Saleeman loo jiro Land Rover aha iyo gaari jaadlaha oo laba isteedka laga aftoobay gabil agteeda Boodley meesha la yiraahdo soo kastam kama hayn Boodley kastam ka jirtay kala laga aftoobay kala bedagteeda ma hayn meel yar kale Boodley loo jiro laga aftoobay markii dambana deeyadu aan isba garanay waan soo joogay waan wax Ilaahay loogu mahadnaqo waxaan damayar idinka sheegay waxyaabihii aan la kulmay sax galbaha kamid ah Hargeysa soo galay oo aniga Maxamed Axmed Xaashiya Ali Cabdi Cabdilaahi oo loo yaqaan Ali Cas imkana barsaab xigeenka Gabili iyo loo jiray Maxamed Aadan Nuuriyey Ibrahim Maxamed Cismaan Shumbro labadu way dhinteen mid dagaalkii buuruhu ku dhintay midna hawlgalka kale ku dhintay oo isla xaggan xadka ayaa hadii jeer magaalada waxaan ku soo gali jirnay fiidka hore aan soo gali jirnay inta ka horeysa 9-10 ee fiidadooga sababtoo guryaha iyo xiriirada gudaha ayaa waxa mas'uul ka ahayd Safiya Xaashi Madar oo ay la shaqeyn jiray hablaha fara badan Umayma inaan la yiraahdo Nimco Maxamed Yuusuf Umayma Maxamed Axmed inan kale oo ina Daahir Jaamaca Fahiima Daahir Jaamac oo ahaa hablihii marka halkan ku tababarnaa sax marka dambana iyagu hablaha iyo dhalinyarada si tababari jiray sax
markaas safiya xaashi xaas leeyahay suurtagal ma ahayn xilli dambe gurigeeda maadaama ninkii aanu isna hawsha aad ku jirin waa gartay dabeedna fiidadoogaasaan soo geli jirnay oo safiya xaashi faatixda kirada guryaha iyo wixii kharash ku baxay intaan joogno iyada hayso mas'uulka ahayd Jabuuti laga soo diri jiro qadiima Allah naxariistay sax iyo qolooyin kale qadiima lagu soo gaajin jiray qadiima halka soo diri jiray marka waxaan soo geli jiray magaalada intaan dadku seexan ka laba arrimood baan idinka sheekeynay kala kulnay gudaha habeen waanu nimi safiya noo keentay alaabtii islaani ayaa abahay qabeebayana faatixdii iyo fiinus noo soo qaatay safi 10 kun oo shilin bayna siisay waan ku tirsahay oo haysta 10 kun marka lacagada aad far badan bay ahayd alcaasa jeebka ku ritay 10 kun masaajidka la dhaab boqol jirka sees yaro xaggan ka xigay aan dhisnay maan ku fadhiisan jirnay ku sugi jirnay 10 kun halkii bay kaga dhaxnaaday waan gartay waan iska tag wax kale ma haysan wax kale ma hayno gurigii baan shidanay la geeyay faatixda baan qaadanay على العقد ولنت ولله إن لنت صفيا صبحنا صامرتي مرقص في يو إن كي وشقيسة هل كان جنت بك الشقيسة حرد جنت وصفيا حاشم ونوتيمي بالورما العقد تبعنا قال لنت تبعنا واحد تريد دقيست هذا مد بندين شيء يعني العقد من الهل سلوه واحد تدير له هلا هل كان كشرنا وحق دي سلوه ما أنت يمكن تبصيها وقت waxaan ku jooj kada baan ku leeyahay wallahi xaga cid dhul ma dhigaysay kada meel kala qabso ma qabsanay batiro wallahi dil waayo maanta ay ku dambaysaa way naga soo noqotay muwaadinkii masaajidka Sheekh Maxamuud ama Maxamed loorin jiray baa u timi waxay tiri adeer halkan lacag iga luntay 10 kun oo shilin marka jamac salaada duhurka iyo maadaan ii weydii salaadii subax bay soo helay waxaan ku yiri mise lacagtu ahayd 10 kun waxay ka koobnay nooc boqol waa ka midhanaya laba kun bay siisay marka lacag badan ahayd way noo timi qaday noo keentay qaab waxay tiri halganka waa xaq alxamdulillah haddaynu ku maranayno aad iyo aad ka harimayno waa gartay alxamdulillah maalin kalena ninka la yiraahdo magaalada xilli dambe soo galay oo dhaxdana ciidamaan ku aragno wadooyinkan oo nagu yar joogsanay waa gartay late waxa markaa أحمد وعلي الشباب إمكا وحوه يستعبان في قبل خطوك دير بوتليها قيب تلقيها أي هبينكي أنو سوى بحيني بورقد يسور ديبي ورقد نو سور ديبي وحلو جينا يعني إمكا عاقلو لنا عبد الرحمن حسن حر ومركا فرمست كل هاي دعاتك سور جيد كده هل كان مكالين تاك تيدا صح ورقد داو جيها وحكالو نقولي وارهاد سيا وحوالي بويد عاني هاتي حل دم مقالي دا قشانو أويدان ميلا تكتان صح محمد سعيد نكلا لنا دعاتك شقيا gurigiisa tigsan gurigana waan idin tilmaamaya marka dhismayaashan badan ee boqol ku yaala ma jirin halkan imka jaadka lagu iibiyo faraska ay markaa joogay ay deganaa waa guriyaha ugu bakoonay laba guriyaha markaa ku yaalay area-da boqol ku gartay waa guriga sida tilmaanta baan la siiyay waxaan soo galay 12 meelaha magaalada maxamed saciid baan ku garaacnay waa ban laga furay albaabka waxaan markaa sidnaa hubkayagii waan sidnaa مينا ونسنا نيني يشني 20 كيلو مينا أنا حنبارسنا محمد سعيد واحد مركز كرنا يعني كلا لا شنبور أنا قاقم بدن سمينين البابك وأنا كوكر عني سنان تدخل كوشك يعني الشك كم بدن ما تشيرين وأنا قرع وروا أنا يعني قفر كم هتاي حتى أنا ما ولا وأنا كلا إنه هو بيسمنا إنه وارك محمد سعيد اسكع على رأيك شوق يتسبق تورنا مورن قريبا كحرون gurigi markaanu galnay ay ninkiis wareysteen waaryaale maxaa ahayd ninkii baa ku yiri Maxamed Saciid horta anigu doo jabhadi baan wasaniintii way waxaad yeelaysaa aad ku taalaa hubkii waa naga qoryaalka dhignay miinadina halkaas ay tahay anana halkaas aan jiibsanay hadaan dib darajo doonayso hadaan qarinayso hadaan raacayso aday ku taalaa dad guriga naga baxsanayso Maxamed Saciid waa calooladeegay buug yaro asteen notebook waxaan ku qoray saacadii iyo gurigaan min Maxamed Saciid balaayo meel beesana baa kaga taala marka wuxuu nasiixay qolkii fadhiga ismaan nahlay waa temporary qolku wuxuu ugu talgalay caawalkan saxnu bariina naga rabo kaarbadkan ku qeylin kooni gidaarkan buug yara hoos galiyay suuxi baa naga kiciyay Maxamed Saciid subaxdii fasax buu soo qaatay
idaacadda markaa caraala haystay caraala waa mijiliska waa rigliga waa rukumada ugu waaweyn mijiliska quraacdiiba noo keenay wuxuu soo kaxaystay gaarigii buluug ahaa ee SBS-ka idaacadda ayuu qadan quraacdiiba noo keenay qaadkiina wuu noo keenay qaylaadiiba hadda barxageeda ku qaylay markaa maqsinkii naga ray moogta maqsinkiiba camirmay markaanu baytilmiga tegayna waxaanu hormaraynaa qoladii camirnay wax alla waxa dowladda u shaqeeya dhallinyaraa meesha ku qaylaa markaa maxamed siciid muu aqalgelin waqtiyadaasaa waxaa daayay roob duufaan wataa jiingadu ka qaaday iskuulkan biyo dhacayna jiingadu dhowr meelood buu ka qaaday u geystay mashaakilaad dabeedna maxamed siciid waxaan ku yidhi maxamed siciidow isku generation ma nihin nimankan shaqaalaha inaanu garanno mooya annagana garan maayaan waan ka baqanay dee kii mahuraan in naba sheegi maayo deetana sidii baan markii ay ahayd saddexdii qoladii horta wuxuu ugu sheegay inaanu nahay qoladii guriga dhisaysay jiingada saartay oo kharashkii waxa laisku yaraaf garan laayay markii aan mirqaamay ayaan sii qor hadana ma caawa inaad mirqaantay waan gartay ilaa hargeysaad ku qaylaysayo aadiya buugiiba waan xusuustay maqsinkana waa amrey maxamed siciid baan ku maxamed siciid oo aqalkii halkii baan buugii ka gayn maxamed siciid markaas ay u daray iyo calaamad la dusha afweyn geerina afweyn SNM baa guul la geerina afweyn kaga dhigsan xaggana sticker ka waxa ku qoran wada SNM iyo hawlgalan maxamed siciid oo naga kacay halkaad dhigtay koonihii baan jiifay baan ku halkii baan u tilmaamay halkii buu dadkii yidhi banay waa u fariisto buugii yaraabuu taabtay ku jiro jaadkii wax kaga tegay maqsinkayga xataa muu soo doonan nimankii wuxuu qorqoraysiiyey oo soo dilay nimankiioo kuma noqonayee maxamed siciid waxa weeye markaa agaasimaha idaacadda markaa qaybtu ka idaacadda imika waa radio hargeysa waa agaasimaha radio hargeysa maxamed siciid waxaanu ku tilmaannay inuu yahay ninka ugu geysan dadka ummaddii markaa dalka joogtay u xamilay kelmad bay kaga yara dhigto markii dib aan ku dacaydayn jiradoo waxay odhan jiray markuu noo soo galan arkaba in ay soo sheegtaan bahid inteedaanay iman waan gartay ali xasan abarsaab ku-xigeenkan gabaley baa ku yidhi maxamed bedel haddaba kelmaddaas yaana kaaga dhegeyni ilaa haddaan kaa tagna bilow cid walba ku tiraahdaa in ay soo sheegtaan bay haydeen wax kale ku bedel waa gartay maalin maalmaha ka mid ah ayuu markuu qadadii noo keenay ayuu sidhi bax marka had iyo jeer muu bixi jirnay oo albaabka jeexjeexiisa eego waxaa guriga hortiisa ku xumaaday gaari TM ah oo duubca sida ابني امرك الهي يقول قرتي كحماد يدك كجرا قول كجرا قرك هابد فرفديا محمد سعيد بس دلدلاعيغو كوفيد بابا سارن البابكي واقرت طاقدي بو غاري عيدنا تاغن واقرت محمد سعيد بابا والله نهيا يقول قادان هنا ديار غرو واقرت حل كلمات قرنسه محمد مشكله والله نقليا اما شرف باد ku dhiman qorigiisii واقرت waan hubsanay واقرت marka naagay gaari laga shaqeynayo sax مسكين نفس محمد سعيد مو بحبه وقت ذنبه بحب مركز لمن كتجن ماشي أيوب بحي مركز هورت تاريخنا انتهى أيام الدين كل شيء جيه وحكي كلامه وينودم بين دونا السعوي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدب ما تنصح برنامج كان يجوب جوج أو هذا كل ساعتين تلفزيون قرية